سيستم كمان توح كدوران إنه وحواي سيستم كي دولة بوتلان محن كده هاي أستيسي أو أها قفي عد دجموين ك بوتلان دمان يكون بسنيهين بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ونمهد علينا وحان جوجا مدشان وان قيب كاهي مدشان آدك أو بلارن المهم كاه يعني كدورنا إنه قدوميها كحجانك يحكيها عصب أورك هوانك دقمة بارجال أورك هوانك دقمة بارجال ما أور ما أنت الأساس أيو وأور سو شقيي إلى حلقي الدولة دي دحيح الصومالية وأور مرحلة بدن صومري hooyooyin sharaf leh baa gacanta ku hayay halkaasna soo gaarsiiyay maalinta faraaq ma uusan yeelan qolaba qolay uga dambeysay xoogaa waxa kala duwan madasha aan maanta joogno iyo sidii hore wax lagu dooran jiray systemka maanta wax ku dooranayno waxa waaye systemkii dawladda Puntland ay maxaan ku dhahay asteysay oo ahaa qof iyo cod degmooyinka Puntlandna dhammaan ay ku dhisan yihiin iyadoo muddo badan ay ku taamaysay Puntland inay halka gaarto nasiib waxa uu yeeshay mudane Said Cabdulaahi Dani madaxweynaha hadda jooga inuu arinta ka dhabeeyo aniga oo in hortaagan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Raas Casayr waxa la igu soo doortay isla sidaan oo kaleeto qof iyo cod baa la igu soo doortay degmooyinka isu tagay ayagaana soo doortay maantana bargaal waa sidii oo kaleeto waxaan aad ugu faraxsanahay gabdhaha reer Bargaal inay yihiin gabdho maanta qaarkood u taagan yihiin iyagoo waliba dhalinyaro ah inay xil hogaamineed qabtaanin iyagoo ka turjumaya rabitaanka gabdhaha reer Bargaal iyo dhammaan reer Bargaal bulshada dhan maanta markaan dhinaca kale ka fiiriyo waa maalin ay ii muuqato muhiimadda midnimada kartida dadnimada iyo awoodda gabdhaha reer Bargaal taasoo aan dareemayo gabar kasta oo gobolka Raas Casayr joogta inay inta iyo in ka badan baleedahay doorashadan waxaan yani u siinay fursad in hogaanka cusubi ay qaabkan hadda aan u joogno ku soo baxaanin waxaan u dardaarmayaa gabdhaha u taagan gudoomiyaha iyo ku-xigeenka oo labada gabdhooda halkan inagu waxaynu uga baahanahay waa hal gabar oo gudoomiyaha iyo hal gabar oo ku-xigeena labada kale oo la tartamaya kale way hari doonaan waxaan leeyahay marka gabar kasta oo halkan isu soo sharaxday waxay isku soo sharaxday waa dadnimadeeda waa awood ay u leedahay inay bulshada wax badan ku soo kordhin karaan inay isku ogaatay sidaa darteed gabadha aan nasiibkeedu noqon in la doorto maanta waxaan rajaynayaa inaysan nagala tegin fikradeeda iyo xoogeeda midna gabdhaha halkan fadhiya oo ergada ah oo dooranaya gabdhahan kala saaraya waxaan farayaa inay waajibaadkooda si fiican u gutaan codbixineed aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin aniga muhiimadda u soo istaagay halkan waxay ahayd inaan furo madasha oo kaliya hadalkayguna intaas ku go'ay. Assalaamu calaykum.